بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لا قالي جاي كحرن شرنا كنعيم بعد يسوع مالوين ودوان سلام يا ما شاء الله. ولا لي سود وهذا ريكل يلا يرينا كل سود وهذا لا تشارك يكم تجننا هذا سوق بع شيء ما فهمتين. سبسكرايب قناتي هذه وعصبت هاي فضل يسار si wax walba aad uga socotid shiina share garay commentigana dhirgelin ayay tahay. Commentiga iga soo dhisan naana ka soo siina faanteen iyo suuqaba ma sha Allah. waxaan halkaan aan rabaa arrin inaan ka jeediyo walaalahayga qaaliga Xabso iyo Rashka Boy oo maalmahan social media isla dhexyaacayeen ma kala tageen misla joogtiin ma kada markana horta ilaahay baa naga og xaqiiqda anaga maana ogin ilaa haddana afkooda lagama hayo. Xabsana afkeeda lagama hayo, waan kala tagnay. ninka la dhahayo Rashka Boyna lagama hayo, waan kala tagnay. bal iska badaa wuxuu dhahayo mashquulka iga daaya, mashquulka iga dhaafa. horta waa run qofka bini'aadanka inuu mashquulo horta wax fiican ma ahan, laakiin Rashka Boy aan la hadlaa asagana mashquulka waxaa keenaya markaagii hore haddaad familigaaga aad soo gelin lahayn youtube-ka ama jaceylkiina iyo wanaagiina iyo maaragta iyo wada socodkiina iyo habdhaqankiina iyo aadan soo dhex dhigi lahayn laguma weydiiyeen familkaaga iyo naagtaada maxaa u kala tagteen iyo ina aawi iyo garabkaaga maqan iyo midna horta laguma dhaheen. walaalkay dhibka waxa keenayo waa taas in lagu weydiiyo ee dadka ay ku weydiiyaan. midda kale waxaan oran lahaa aniga walaalkay in oo maaragta laga daayo buushka iyo maaragta commentiyada qaldan oo loo qoraayo iyo habaadka iyo cayda. naag waxaan arkayay lahayd nin abaal ma lahan waa sidan weliba gabadhaas ani magaceeda ma sheegayo, balse laakiin ayada laftirkeeda nin baa qabo oo waxay lahayd doofaarka eyga wasaqa kan wiil wuu kula dhashay wuu ku qabaa aabaha waaye waad dhali doontaa maxaa u habaare maxaa u caynaysaa yaa maxaa kaa quseeya adiga ma fahamtay. reerkan waan jecleen inay isla joogaan maybe laga yaabe prank aniga u maleynayo waayo videoyaasha waxaa laga dhigi karaa breakfast la geli karaa man hadhowna la soo sii dayn karaa. laga yaabay inay familiga ay diidan yihiin gabadhooda in publicada mar walba lagu wareejiyo inay ma aragta ani waxaa aaminsanahay inay il kala kaxaysaba il ma fahamteen waayo dadka isqabo oo youtuberada ah dadka ugu fiican ayay ahaayeen ayaga waayo jaceylkooda iyo nasteexada iyo dad dhahayna waa arka dhahay waa youtube kaliya filimka ku dhigaan kabacdii oo maaragtay muxuu ahayti anigu maleynaa mana aaminsani qofka qalbadiisa ama macnaha waxa uu ka turjuma ama ficilka uu sameeynaa youtube-kiisa iyo baraha bulshada uu la yimaado uma maleynaa inuu macnaha uu ay ka tahay show iyo status inay ka tahay ma maleynaa. weliba Rashka Boy inay ka tahay iyo Xabso ma maleynaayo, laakiin ani wallahi aad baan u ilmeeyay, aad baan uga xumaaday kala tagga. ilaahay horta kala tagna wuu keenay, in la isqabana wuu keenay, inta ilaahay wuu jiheeyay wuuna ma aragta baneeyay. hawaanba maxaa u furtay, hawaanba maxaa u kala tagteen, hawaanba gabadha xagee geysay. dadkan koole iskuma aha mana isku talno, waan jecelnaa in isla joogaan oo inuu ilaahay been ka dhigo aadan u jeclaan lahaa. ilaahayna been ha ka dhigo, way isku soo laaban karaan dad haddii hal dalaaqo lagu furo ama laba dalaaqo way isku soo noqon karaan. weji baasboor waaye. ani waxaana dhihi lahaa shacabow ka daaya commentiga qaldan iyo habaarka aa wiilka ku wadiin ood habaaraysiin oo maaragta hadalla xunxun aa ku hadlaysiin. naan kaloo keensaday waan aragnay, laakiin inay maaragta waxay ka tahay laga yaabaa muxuu ahayd ay ka tahay muxuu ahayd inay care ay ka tahay laga yaabaa ama maaragta arrin family anaka ma ogaan karnaba. inta aan uga jeedno dhalaas aan ka daawanayno oo maaragta waxa ay noo sheegaan un kaliya u jeednaa, laakiin xaaladaha hoose ama indaaniga oo gudaha ah anaka ma ogaan karno. inaan ogaanana qasab ma ahan, mii fahanteen ya. mar walba maaragta inaad maaragta laga hadlo qoysaska maaragta ama gudahooda ama hoostooda iyagaa naga og iyo ilaahooda ma garateen. laakiin ani fariin waxaan sidaa inaa wiilka laga daayo dhibaatada lagu haayo ama la caynaayo ama afla la agaadeynayo. waxaa laga yaabaa gabadhaas inay iyada tiraahdo hawaanba ifur haddii ay qabsato maaragta kuleetiga ay tiraahdo ifur oo maaragta ay soo istaagto hawaanba ifur ay soo istaagto oo familgeeda u wacato dadkeeda u wacato
meeshaas waxaa imaanaysa kala tag soo maahan inay iyada wadaa laga yaabaa dhibka ama ay ka timaado ayada xaggeeda ama faamiliga uu ka yimaado ama dhibaato kale ay iska jiraan oo idinka aada xaqiiqda aanna ogeyn. wiji baasboor waaye, wiilka soo dhaweeye, wiilka niyadda ha loo dhiso, wiilka yaa la caynin, wiilka yaa waxba laga sheegin, yaa la dhihin muxuu ahayte beriyaa laga yaabaa inay isku soo noqdaan. waa dad isjecel, mi fahanteen? waa dad isjecel laga yaaba beri inay maaragtay rajacatun dhaho ama ee faamiliga heshiiyaan ama laysku soo celiyo ama eesaas reerkooda uu ku dhisnaado aa laga yaaba. idinkana afka iyo caydii aflagaadada in ka tagtay dumarka u badan inta caytamaysoo dhan. dumarka waa walaalaheena, walaalayaal waxaan idin sheegayaa inay horta waxaas ay wax fiican aysan ahayn. laga yaaba inuu ninku qabo inuu kula dhashay aabaha waaye, markuu doofaaraha iyo caydii iyo aflagaadada aawadiin ha laga joojiyo wiilkan miskiinka ah. qof reer dumay waa dareemi kartid, reerka markuu dumo barabaleen yaa reer dumay waa dareemi kartid barabaleen iyo tashuush iyo waxyaabo badanaa ku furan. mii fahantay inaa idinkana aad sii caysiin oo maaragta aad sii xumaysiin ama aad hadallo xunxun aad tiraahdiin horta aadaa uga xumahay. commentiyadiina inta badan waa arkaaye negative ay wada badnaayeen kulligood. mii fahanteen ha laga daayo. aniga aaminsanahay oo u duceeyay reerka oo waxaa dhahdin ilaahow isku kiin soo celi. waan ka xumahay horta aniga ahaan waa ka xumahay horta kala tagga, laakiin wuxuu ilaahay qoray loox maxfuudka ku qoray lama celin karo. waa haddii ay jiraan waayo, haddaysan jirina maba jiraanbo. laga yaaba inay isku soo laabtaan, boqolaa isfurto isku soo laabato, inay shiyaana macquul noqon karto. laakiin idinka cayda iyo aflagaadada walaalayaal intaas aan ka baryayaa ka daaya reerkan cayda iyo aflagaadada aad ku wadiin iyo kommentiyada xun ee qaldan aad maaragta aad u qoraysin ka daaya. yaa nin waa doofaar, nin abaal ma laha, nin waa sidan, waa kan eywey, waa kan maxaa keenay nin doofaar iyo nin ey ah midna ma jiro. waxaa ilaahay baa qoray, ilaahay baa kala waday, ilaahay baa beri isku soo celi karo, waxbay isku dhaleen, ilaahay baa ka oobsaday. ani waxaa aaminsanahay inay il tahayba wanaagooda iyo maarag jaceylkooda iyo waxooda inta laga yaabo inayba il ku dhacad meelay il gashaan xaasidoo dhan wuu gelayaa. mii fahanteen? isha meel aysa duleelin balaaya maba gashaba. mii fahanteen? waxaa laga yaaba jaceylkooda iyo wanaagooda dad maaragta ka xun inay jiraan yaa oonan haysan jaceylkaas iyo baarinimadaas iyo wanaagaas. mii fahanteen? marka walaalahaygo waxaan ka codsanayaa commentiga qaldan inaad ka daysiin wiilkan oo aad ku caynaysaan meel walba waxaa uga aflagaadeynaysiin. saan baad tahay, kan baad tahay, fulaan baad tahay. weliba walow ani aan maqlaayay xan ah micnaha aan ka maqlaayay meelaha oo lalahaa maaragtay muxuu ahayd reerkeeda ayaa u diideen oo reerkoodii waxaa dhaheen ma lagu maaragtay uma ogolin gabadheena inay social mediaha iyo meelaha la wareejiyo. ani ka ahaan nicimo baad ahaan uma malaynaayo, waayo intaysan isguursan ayay ku jirtay. waatay riwaayadaha la soo dhigaysay, waatay weligeed iyo allaheedba ay ku jirtay youtube-ka rashka intuusan guursan ka hor waxay isku barteen waxay ahayd riwaayad oo asaga u wada ee la waday. mii fahantee? waa haddii ay la dhaho gabadheena ma u ogolin, hadday dhaheen hortiisay ku jirtay yaa asagana wiil wuxuu ahaa wiil maasha allah ah oo fiican, fanaanu horta ahaa markiisa hore. marka dambena ilaahay baa maaragta kasoo hanuuniyey oo wuuba iska daayey fanaanimadii xidigaha oo wuxuu ku jiray islii. ani waan garanayaa aroosyada inta badan maaragta ay ka heesi jireen meelaha xafladaha iyo maaragta waxay ka heesi jireen riwaayadaha muxuu ahayd rashka boy. hore ayuu magacaas u lahaa, wax hadda loo bixiya ma ahan. mii fahanteen? marka horu caanu ahaa wiilkan. ta kale dadka dhahaayo oo dhahaay maaragta xabso ayaa maaragta channelka uu kugu kala kacay iyo waxaas horta aflagaadadaas la iska daa. waa ogtihiin channel oo asaga keligiis uu hore u waday in laga jabsaday oo channelkaanay la kulanta ayada ee lasoo gasha maahane. channelka hore keligiisaa watay filimaan iyo riwaayada iyo waxyaabo noocaasa ugu jiri jireen. waa tii laga jabsaday, waa tii dhibaata ay kasoo gaartay. marka horta cadowga waa iska badan yahay. waxaan idin sheegayaa walaalahay oo aniga aan ku waaninayaa qofka markuu dhiban yahay dhibka laguma sii ma aragtay laguma sii bahalkeeyo, laguma sii adkeeyo, lama caayo. wax wanaagsanaa loo sheegaa. ilaahay waxaan ka baryaa ilaahay inuu been ka dhigo, ilaahay isku soo celiyo ayaan ka baryayaa haddii ay waxay u dhiman yihiin waaye. mii fahanteen? marka waad ogtiin reer nin dhan oo maaragta xaaskiisii ay kala tageen maskaxdiisa inayna fadhinin, inuu barbalensan yahay. waxaa laga yaabaa jaceylkeeda inuu la murugsan yahay,
wuu ka seexan la-yahay, ayadana sidoo kale ee ka seexan la-adahay ee isku baahan yihiin. marka ay u duceyno inuu ilaahay isku soo celiyo labadooda oo maaragta dhexdooda ilaahay wanaag ka dhex abuuro walaad kale iyo inta haddii wax iskuga harsan yihiin waaye inuu ilaahay ha isku soo celiyo ayaan leeyahay aniga. hadday isku soo laabanaynin dee ilaahay qof walba khayr iyo hortiisa iyo asagana gabar wanaagsan allah u sahlo, ayadana nin baari wanaagsan ilaahay ha u sahlo. Xabso gabar fiican ay ahayd, asagana wiil fiican ayuu ahaa. marka waxaan inka baryayaa keliya walaalahayga qaaliga ee sharafta leh inaa u duceyno ayaan leenahay, inaa commentiga qaldan laga daayo, wiilka caydi aflagaadada laga daayo, gabdhaha waayo doofaar dhahaayo inaa ka daysiina inka codsanayaa. intaasa maaragta ani aan kusoo gabagabeynayaa. waa igu codsi reerkaas yaan la caynin yaana la aflagaadeynin. halkaasaan kusoo gabagabeynayaa walaalahayga qaaliga. laagta iyo sheerka iyo commentiga iyo subscribe-kana waa xaggiina. naanaa dhac ka siiya ma fahanteen, naanaa hadda ka siiya waa walaashii.